bilaabaynaa conceptiga public speaking kaan ku bilaabaynaa hadduu ilaahay okay so horta labada kelmadood Englishka I hope inaad si fiican u garanaysaan kelmadina waa public kelmadina waa speaking marka laba kelmadood oo is saaran qofka marka labada kelmadoodu marka macnaha public speaking uu ku dhisan yahay meeshaas uu ka fahmi karaa oo maxaa la oranayaa waxaa la oranayaa public speaking haddii la yidhaahdo definition ama tacriifa loo sameeyo simply waxaa lagu qeexi karaa qofku afkaartiisa inuu keeni karo meelaha fagaaraha inuu soo dhigi karo intaasaa waxaa la yidhaahdaa public speaking masla baan dhaliyan qofku afkaartiisa inuu ku exercise garayn karo ama inuu keeni karo meelaha fagaaraha intaasaa waxaa loogu yeeraa public speaking hadduu ilaah yidhaahdo si kale haddii loo dhigo public speaking waxaa laga wadaa qofku inuu la hadli karo live audiences inuu la hadli karo sida hadda anigu aan samaynayo kale intaana sidoo kale public speaking waa lagu magacaabi kara okay marka Englishka meelaha ku qoran aamiyad saas u weyn kuma fadhinayo waxa muhiimka waa qofku waxaan wuxuu ka fahmo مثلا halka get haddaan mar kale ku celino public speaking is a way of sharing your ideas in a public يعني fagaarka hadalku waa qofka inuu ku dhiiran karo afkaartiisa ama wuxuu rumaysan yahay ama wuxuu ku aaminayo inuu meelaha fagaaraha inuu soo dhigi karo intaas waxaa la yiraahdaa public speaking qaybta dambe influencing other people waxa laga wadaa hadhowtii markaan ka sheekeynayna awoodda hadalku uu leeyahay ayaan si fiican u fahmi doonaa hadduu ilaahay yiraahdee dadka hadal yaqaanada ama hadal sameeyaasha ama codkarka inta badan dhaqaale ahaan bulsho ahaan iyo siyaasad ahaanba dadka way u saameeyaan waxaa jira hadda tusaale magacyaha dhihi karta 1 2 3 4 5 6 waa dhihi karta kaa waa siyaasi kaa waa halabuur ganacsi kaa waa aqoonyahan kaa waa social activist aad dhihi kartid oo adduunyada ka tilmaamanaa jira marka waxyaabaha ay dadka ku saameeyeen waa through speaking definition ka hoosena public speaking waxaa laga wadaa the act of performing a speech before a live audience qofku dad sidaan oo kale ah live audiences hortooda inuu wax ka sheegi kara intaasaa waxaa la yidhahdaa public speaking intaasaa la yidhahdaa you get it masla soconaa good so gaariga marka haddaa ka dhacdid waxaan u malaynaa kolley waxa waa hadalkayga si kooban inaan laga caajisaynin waxaad isku daydaan desi ma isla soconaa markaan inoo kale yes gadaal ka soo dhaca okay duu ilaahay hagaag intaa markaan fahnay marka waqtigan la joogo tusaale qofku wuxuu bartay caafimaad uu bartay macnaha uu samaynayo waa naqaana soo at the same time qofku wuxuu bartay technologiyad iyo computer buu bartay macnaha uu samaynayso waa naqaana soo ma then qofka hadduu bartay public speaking maxay usoo kordhinayaan waa su'aal maxay usoo kordhinayaan ama si kale haddaan u sheego barashada xirfadan hadalku ama wax soo jeedintu maxay macno ku fadhisaa dhowr qodob oo kooban ayaan rabaa inaan ku soo koobo before aanan waxaan sharxin marka number 1 intiin hadda tusaale jaamacadda dhigatay graduate-ka ku dhow almost jaamacadda markaad ka baxdaan waxay u badantaa suuqa inaad gashaan soo saas baa sheekada shaqo la raadiyo wixii lagugu soo tacabay tiir beelay inaad soo celiso inaad isku daydo waxyaabaha marka dadka shaqada loo xulanayo lagu kala xusho waxaa ka mid ah wax loo yaqaano oral communication qofku yacni xiriirka dadka uu la samayn karo awoodda dadka uu kula xiriiri karo waxyaabahaasaa qofka lagu xushaa maslayn halkaa good si kale haddii loo dhigo waxaa la leeyahay qofka markuu hadal yaqaan hadal sameeye markuu yahay caalami ah dadka waa ka tilmaamaya dadka caadiga waa ka tilmaamaya masal baa min halkaa si kale haddii loo dhigo si kasta oo xirfadan barashadeeda aa iskaga maawelis uga dhuudhuumatid maalin un wax public speaking la xiriira waa ku qabsan doonaa maybe next day maybe the next or the next 5 years wax public speaking la xiriira si kasta uga dhuudhuumatid maalin waa ku qabsan doonaa marka it's indispensable skill xirfad cid ka maaranta aysan jirin anaa u baahan adaa u baahan dhakhtarka u baahan qofka waxaa u baahan saleska u baahan leaderka u baahan presidentaha u baahan cid kasta u baahan masala baan dhalinyar marka waa xirfad haddaan si kooban u sheegno xirfad ka maaranta aysan jirin okay then
pointigaas waxaan u maleynayaa inuu ku filan yahay haddii la yidhaahdo hal la sharxo ama hal la muujiyo ahmiyadda public speaking uu leeyahay pointigaa yarkaa ku filan muxuu leeyahay if you can express your good ideas then you are at the same level as someone who doesn't have even ideas haddaadan fikirkaaga muujin karin ama haddaadan aragtidaada bannaanka keeni karin adiga iyo qofka aan waxba fikrad ahayn farqi idinma dhexeeyo aan ku celiyay markale waxaan dhahay qofka hadduusan ku dhiiran karin inuu afkaartiisa bannaanka keeno ama qofka hadduusan ku dhiiran inuu fikirkiisa bannaanka keeno qofkaas iyo qofka aan waxba fikrad ahayn they are same marka adoo buuxa fi cilmi aqoon afkaar adoo ay kaa buuxdo haddaadan bannaanka keeni karin adiga iyo qofka ziirada inaad isku mid tihiina laga soo qaadaa that's the importance of public speaking masala nadir marka I hope qofkan ku baraarugsanayn inuu ku baraarugay qofkii xoogaa ku taamayay inuu bartana waxaan u malaynayaa ya adoo gurigaaga usii socda hadduu roob yimaado maxaad samayn gurigaaga adoo usii socdaa roob kugu yimid meeshaas socotay maxaa samayn ordaya sooma qofkii ku haminayana waxaan rajeynaya hadda inuu usoo ordi doono saasaan rajeynaya kama then qofka markuu barto intaas haddaan uga tallaabno ahmiyadda xirfaddan ay leedahay waxaan halkaan pointiyo kooban ku sheegaynaa public speaking haddaan barto maxaan faa'iidooyin oo ka helaya waxaad ka helaysaa kow influencing the world around you horta dunida kugu xeeran waxaa ku yeelanaysaa saameynaa ku yeelanaya waana qodobkii haddaata aan sheegayay yacni dadka bulshada ka dhex iftiimo aad leedahay hebel heblaay wax noocaas oo kale ah marka adduunyada kugu xeeran ama kugu xayndaaban saameyn ayaad ku yeelanaysaa qodobka labaad developing leadership skills waxa isku xiran xirfadda hadalka iyo xirfadda hogaamintu waa walaalo ma kala haraan meel allaalay meeshii leadership uu joogo public speaking daaqaduu ka soo gala automatic asagoo loo wicinba waa joogaada maxaa isku xiray marka waxaa isku xiray waxaa la leeyahay maanta qofka hogaamiye loo dooranayo ama hogaan raba in loo magacaabo ama loo qaato xirfadaha 1 2 3 la oran karo ee qofkaas lagu xiran karo waxaa ka mid ah the power of speaking qofka inuu hadli karo dadka inuu wax u soo jeedin karo afkaartiisa dadka inuu ka dhaadhicin karo number 1 skill oo number 2 meelahaasaa leeyahay haddii adduunyada sii socotana waxaaba laga yaabaaba qofkan leader ayaa la rabaa in loo doorto number 1 in lasoo hordhiga la yidhaahdo communicationkiisu waa noocee ma isla fahmayna dhalinyarka marka intiina ku haminayso meelaha oo positionska leadershipka ku haminayso waa sunna mu'akkada xitaa ma waajibo sunna mu'akkada xitaa ma okay qodobka xiga faa'iidooyinka qofka hadduu barto public speaking uga faa'iidayo waxaa ka mid ah becoming a thought leader waxaad noqonaysaa qof aragti curin kara afkaaro dhalin kara sababtoo ah xirfaddan hadalka qofka markuu barto waxaa la leeyahay wuxuu ku dhiiran karaa waxuusan hadda ku dhiiran karin waxaadii hadda aan suuragal kuula muuqan almost yacni aad ka baqaysa xilligaas waxay kuula muuqanayaan suuragal ayay kuula muuqanayaan qodobka xiga waxyaabaha qofka hadduu barto public speaking uu ka faa'iidayo waxaa ka mid ah developing critical thinking skills critical thinking skills waxaa laga wadaa qofku mushkiladaha nolosha inuu xallin karo furfuri karo wax ka qaban karo maadada lagu daraasaya waxaa la yidhahdaa critical thinking ayaa la yidhahdaa marka cilmi baaristu waxay sheegaysaa qofka codkarka hadalyaqaanka ama hadal sameeyaha caalamiga ah mushkiladaha nolosha inuu ka furfuri og yahay ama inuu ka xallin og yahay kan aamusana marka marka yacni qofka hadduu hadal yaqaan caalamiya hadduu yahay inuu mushkiladaha nolosha furfuro waxaa leeyahay aad ay ugu sahlantaa leeyahay qodobka xiga waxyaabaha hadduu barto qofka public speaking uu ka faa'iidayo waxaa ka mid ah your career professional yacni waxa isku xiran xirfadda aad rabtid inaad ku shaqaysatid iyo xirfadaada communicationka ama hadalku laba shay isku xiran tusaale company baa wuxuu ku qaatay inaad u noqotid sales ama marketing inaad u noqoto ku qaat marka qof sales waxaa looga baahan yahay qof customer kuu imaanaya
xitaa hadduusan ku tirigelin inuu wax kaa gato inaad wax ka geli kartaa lagaa rabo adoon sixirin qofka ya by what the power of communication the power of speech okay qodobka u dambeeya public speaking haddaad baratid it will empower you wuxuu ku siinayaa awoodu ku siinaya aragtidaada aad ku cabiri kartid meelo dadku aysan tegi karin aad tegi kartid waxaysan dadku ku dhiiran karin aad ku dhiiran karto marka thesis waa xirfad runtii aad muhiim u ah waaye laakiin inta badan dadku barashadeeda iyo aad uga cagajiidaan almasiyada macadkan anigu aan joogay mind successna waa macadka keliya tababarada noocaana iyo koorsooyinka noocaana magaalada ka bixiyo mustaqbalkana waxaan rajaynayaa macaahidda africa loo soo doonto inuu noqdo xirfadda hadalka iyo communicationka iyo waxyaabahaas saasaan rajaynaa marka si kooban that's the importance of public speaking okay come on halkaan marka waxaan ka gelaynaa sheeko yar oo xiiso badan marka waa dadkii horaan ka sheekaysanayna okay the power of speech awoodda hadalkan halkaan uga sheekaynaynaa mana badinayno dhowr qodobo kooban ayaan ka soo qaadanaynaa hadduu ilaaha yidhahdo hor soomaalida waxay tirahdaan tusaale dhagax haddii la tuuro muxuu ku dhaca meel dhow sooma laakiin dhawaqu muxuu gaaraa meel fogu gaaraa sooma xaggay dhigtaas adduunyada waxaa ku nool almost 7.something billion sooma toddobadaas something billionkaas qof kastoo ka mid ah inta u tegta ma soo salaami kartaa ama may ma soo salaami kartaa waa adagtaa sooma ma samayn karta laakiin intaas oo adduunyada dadka ku nool waxaa gaarsiin kartaa hadalkaaga gaarsiin kartaa ma fahanteen taas geed waxyaabaha marka tusaale la bedelaayo bulsho ama wadan ama dad say u dhaqmaan ama dad say u fakaraan marka la bedelaayo waxyaabaha la isticmaalo waxaa ka mid ah awoodda hadalka aad loo isticmaalo for example awoodda hadalka uu leeyahay haddaad rabti si kooban inaa fahantina laba shay kaa badan waxaa kaa badan qur-aanka kariimka iyo xaadiista nebiga goormay soo degin intaasoo sano ka hor ay soo degin maantana waxbay kaa reebayaan oo xanuun ku faraan meesha u hooseysa xaggay dhig marka waxaan halkan kusoo qaadanaynaa marka taariikhda marka laga sheekaynayo waxaa jiray hadal yaqaano ama hadal sameeyaal caalami ah oo hadalla dunida ay ka sheegteen ilaa adduunyadu ay sii taagnaanayso la xusi doono 50 sano ka hor qaarkood sheegay qaarkood 70 sano ka hor sheegay ilaa adduunyadu ay ka taagnaanaysana hadalkaas jiilba jiil u dhiibaa geed intaa marka englishkan macno saas kuma fadhiyo kama hadalka u horreeya waxaan ka soo qaadanaynaa meeshaas xoogaa waxaan u malaynaa si ay iduma muuqata laakiin waa sharxina ninkaas sawirka ka muuqda magaciisa waxaa la yidhahdaa Martin Luther King ayaa la yidhahdaa wuxuu ahaa American African in madow American u ahaa wuxuu ku noolaa marka dalka Mareykanka ku noolaa xilliyadii hore marka Mareykanka ilaa haddana xoogaa waxbaa dambeeyo waxaa ka jirtay cunsuriyad aad u ballaaran ka jirtay madowga iyo cadaan isku meel wax kama gadan jirin isku meel wax kama oran jirin isku bas ma raaci jirin aaday u kala fogaay marka quwadda Mareykanka oo dhan cadaanka iska lahaa marka ninkan marka Martin wuxuu u doodi jiray in wadankan Mareykanka maalin loo sinaan doono 4 caruur u joogtay wuxuu ku haminaa marka in 4tiisa caruur ee madowga ah maalin ay isku xuquuq noqon doonaan ama ay iska daba dhawaan doonaan ayaga iyo kuwa cadadka waxa dhacday marka hadal laga qoray oo waxaa jirto la yiraahdo I have a dream of Somali sheeg anigu waxaan leeyahay riyaan leeyahay hadalka ninka laga qoray marka waxaa la yiraahdaa I have a dream good wuxuu ku fadhiyay marka intaan sheegay marka wuxuu ku fadhiyay hadalkaa wuxuu jeediyey 28 Agoost 1963 xilligaas uu hadalkan jeediyay sanadkaas ayaa joogay intiin xilligaas uu jeediyay marka wala haddaad YouTube ka baartaan waad helaysaan I have a dream intaasaad ku qoraysaa waa 7 daqiiqo meelahaas u soconaya almasi kaamirooyinkii hore casrigan ma oolino dadku dhan waxa waa waa nooc kale
ku dhawaad 2 milyan oo qof oo hadalkaas u jeedina markii isla socona ninka marka riyadiisa waxay rumowday 45 sano kadib ay rumowday goorma 2008 markii wadanka Mareykanka oo madaxweyne ka noqday Barack Obama oo ahaa nin madow ah waa maruu dhintay lagu kala tegay 45 sano kadib ninkaas riyadiisa ilaa hadda Mareykanku ninkaas waxay ku sheegaan hadal yaqaanada dhif iyo naadirka ee Mareykanka soo maray ku sheegaan I have a dream Johnson marka qofkii Soomaaliya ka oran lahaan idinka la nagsiga diilaayay okay wax lamida ka agdhow la jaan qaadi kara qofkii Soomaaliya ka oran lahaa idinka sanad walba markii la gaar xilligaas waxa uu sameeyaa xusi u sameeyo way xusaa Johnson kataas marka waxa waaye waa wax lagu macnayn karo ama lagu suureyn karo awoodda hadalka uu leeyahay kama waaye hadalka labaad waxa laga qoray madaxweynihii 32 ee Mareykanka soo mara ee lagu magacaabi jiray John F Kennedy waxaan u maleynayaa inaad magaciisa aad u xasuusataan John F Kennedy madaxweynihii 35 ee Mareykanka soo mara waxa laga qoray marka 3 sano asaga madaxweyne ah markii la doortay 3 sano asagoo ah bashir qoola lagu dilay marka waxa laga qoray marka xafladiisii caleemasaar intii lagu jiray ayuu hadalkan jeediyay marka wuxuu yiri marka waa qaybta yiri gududka ku qoran ask not what your country can do for you ask what you can do for your country Soomaaliga aad taqaana ha isweydiin wuxuu wadankaaga adiga ku qaban kara isweydiin waxaad adigu wadankaaga u qaban kartaa dhigayna ku soo dhacay Soomaa goorma la sheegay kursi 462 eeridaasaan maleynaa ilaa haddana waxaan arkaynaa hogaamiyaal dad isticmaalayaan arkaynaa diiwaanka hadallada adduunyada ugu saameynta badan oo ku jira Johnson marka that's the power of public speaking in Somalia marka adduunyo Mareykan inta naga deysaan Soomaaliya gudaheed hal tusaale laba tusaale hadal caalami ah oo xilli hore la sheegay saameyntiisuna mar walba iska taagantahay hadaad xasuusatid yes adoo raaleysa qoriga dhig qalinka qaado waa excellent yaa kaloo aw dadka waaweynaa hay yes iiwan inta maan ku gaajeysan yahay guuli waa wali good masha Allah haye good ha dagaal wiilkuma dhashay excellent hadal kale oo haye waxaan soo qaadanaynaa marka tusaale yar oo taariikhda aan ku maqlaan soo qaadanaynaa waxaa la ii sheegay oo taariikhda aan ku xilligii dawladdii Maxamed Siyaad Barre 70-something-kii oo xilligii ugu awoodda badnayd ayaa waxaa la yidhi waa isbaara marka waxaa la yidhi waxaa iska baaraa qof kasta waxaa la yidhi waddanka shaqada u qabto waxaa la rabaa inay caddaato askariga shaqooyinkiisu inay caddaadaan macalinka shaqooyinkiisu inay caddaadaan dhakhtarka shaqooyinkiisu inay caddaadaan qof kasta shaqadiisu inay caddaato ayada sidii la wadaa meesha waxaa ku soo dhacay qolo la yidhaahdo abwaano ama sugaanyaano waa la fiirshay meelay u socdaan iyo meelay ka socdaana le madaxweynihii waxaa la yidhi tiimkii u wac Siyaad Barre ku wacay xilligaas dil la yidhaahdana baso waa loo yeer soo fariisaa yidhi xanimayhu waddanka waxaad u qabataan 24 saac gudahooda haddaad ku soo caddayn weysaan waa laydin yaabo kelmadda waa laydin yaabo haddii la yidhaahdana nabad weyn ma jirto bes madana madaxweyne waay waxaan maqlay marka halkaanay ka carreen waa isku habar wacdeen waxay ku arooreen Djibouti ku arooreen taariikhda saan ku arkay 24 saac intaan aysan dhammaan ayaa waxaa la yidhi waxay madaxweynaha u soo direen heesta oranaysa dadweynahan hanuuninaa haasaawinaa danta u hayna madana madaxweyne shaqada waddanka aan u qaban anagu waa taasaa madaxweyne waa fiirshay oo saxantiina marka that song fiiriya caadiga waxay badbaadisay nafay badbaadisay waa iska dhegaysteen laakiin idinku yaa nafay badbaadisay halkaa marka waxaa laga sawiranayaa awoodda hadalku uu leeyahaa laga sawiranayaa ma isfahmina dhalinyaro halkaa marka ina keena
Yes, no. Good. Saan marka u ogaana marka waxyaabaha dadku aadka u xiiseeyaan oo aysan hilmaamin oo maskaxdooda aan ka bixin waxaa ka mid ah kowtiska ama xikmadaha yaryar ee kooban ee mawduuc dhan qofka loogu koobi kara ayaa ka mid ah. Marka awoodda hadalka waxaan ku koobaynaa xikmadda yaraan ku koobaynaa oo oranaysa if you can speak you can influence and if you can influence you can change lives. haddaad hadli karto saameyn baad yeelan kartaa, haddaad saameyn yeelan kartaa waxbaad bedeli kartaa. That's enough. sheekada xagee ka bilaabanay? ma saameynay ka bilaaban isbedel mise hadal maxay ka bilaabanay? hadalay ka bilaaban. First waa inaad hadli kartaa horta. haddaad hadli karto saameynaad yeelan kartaa, haddaad saameyn yeelan kartana nololba waxbaad bedeli kartaa. You get it? Good. waxaan marka halkaa uga baxaynaa noo soo celiya qayb hore halkaasaan uga baxaynaa qaybtii dhaxan gelin. waxaan halkaa ka gelaynaa marka qaybta labaad ee tababarkeena. qaybtan haddaan dhamayno waxaan aadaynaa qaybta practicadan aadaynaa hadduu ilaah yidhaahdo. Common types of public speaking, marka noocyada marka loo qaybin karo fagaarka hadalka ama noocyada hadalka loo qaybiyo. Good. waxaan leenahay marka although public speaking is of various types, they generally can be grouped into 3 categories. saddexdan qaybood ayaa ugu waaweyn public speaking. ama haddii la yidhahdo waa la hadlayaa qofku saddexdan midkood ayuu hadli karaa. kan koowaad waxaa la yidhahdaa informative speech, kan labaadna waxaa la yidhahdaa persuasive speech, kan saddexaadna waxaa la yidhahdaa ceremonial or entertainment speech. saddexdaas ujeedaa loo hadlaa bis. haddaad masrax timaado, dad wax u sheegayso, dad wax u soo jeedinayso, saddexdaa midkooda aad uga hadli kartaa. kan koowaad informative speechka waxaa loogu talagalay qofka markuu xog macluumaad wax cusub markuu dadka usoo jeedinayo ayaa waxaa la yidhahdaa informative speaking ayaa la yidhahdaa. For example, lecturekan hadda ku saabsan public speakingkaan idiin soo jeedinayo wax badan yani waxaa laga yaabaa aniga hortagin inaan ka ogeynaa laga yaaba, laakiin wax badan aan idinkaga sheego. kaasa marka waxaa la yidhahdaa informative speaking ayaa la yidhahdaa. tusaale kasoo qaad waxaa ka tirsan tahay company oo kale ka tirsan tahay, companyga wuxuu soo saaray badeeca cusub soo saaray. badeecadan kasoo qaad mashiin oo kale inay tahay, marka mashiinkan sida loo isticmaalo markaa dadka baray sidoo kale waxaa la yidhahdaa informative speaking ayaa la yidhahdaa. qaybta labaad waxaa la yidhahdaa persuasive speech. waxaa loogu talagalay kan markii la rabo dadka in wax laga dhaadhiciyo. tusaale public speakingka ma loo dhashaa mise waa la bartaa? aye hadal yaqaanada ama codkarnimada ma loo dhashaa mise wax la barto? waa loo dhashaa soo ma? allah idinka cafiyo. It's a skill, waa xirfad la baran karo. maybe marka inaad aaminsan tahay codkarnimada hadal garashadu waa wax loo dhasho. qofkii u dhasha waa iskugu toosay, kan u dhalana shaqo kale allah u sahla inaa leedaha laga yaabo. marka sheekadu saas maahan, waa xirfad. marka qofkii markii la rabo waxaa in laga dhaadhiciyo kale waxaa la isticmaalaa persuasive baa la isticmaalaa. kan saddexaadna waxaa la yidhahdaa ceremonial speech ama entertainment speechna waa la yidhahdaa. waa hadallada inta badan meelaha munaasabaadka naga jeedo sida xafladahoo kale, meelaha qalinjibinta oo kale, aroosyadoo kale markay dadku isugu imaanayaan oo kale hadallada laga jeediyaa waxaa la yidhahdaa entertainment speech oo kale loogu yeero. marka saddexdaa nooc ama saddexdaa qaybood ayaa ugu caansan uguna waaweyn noocyada public speakingka marka laga hadlayo. hal haddaan usoo qaadano kaas waan sheegay informative speechka ujeedada ugu waaweyn loo sameynaa waxay tahay knowledge sharing wax loo yaqaano. qofku markuu rabo aqoon ama wuxuu yaqaano dadka inuu la sheekarayo ayaa la isticmaala. kan casharada aad ku dhegaysataan, tababarada aad ku qaadataan, macallimiinta ay wax idinku siiyo, kaasa waxaa la yidhahdaa informative speak or informative speaking. Good. Hi, yes, no. And Mohammed, yeah. What's come on there? Okay. Waya qaybta labaad persuasive speaking waan sheegay waxaa loogu talagalaa dadka markii la rabo in wax laga dhaadhiciyo ayagoo maskaxiyin loola macaamilayo. tusaalehan wadankeena markii cudurka coronavirus uu soo galay dadku labay noqdeen, dad aaminay iyo dadaan aaminin. soo saas ma ahayn?
gruubka aaminin xagga dhig dadka aan aaminin marka laga dhaadhicinayo cudurkan inuu jiro oo uu joogo oo uu yani dilaa yahay waxaa loo isticmaalaya persuasive baa loo isticmaalaya okay persuasive baa loo isticmaalaya kan saddexaadna waa kan inta badan ku yimaada meelaha munaasabaadka ee dadku ay xafladaha iyo waxyaabaha noocaas oo kale degsi oo ceremonial speechka loo yaqaano marka saddexdaasa ugu waaweyn loona qaybiyaa public speaking good kama ayi haddaan marka waxaan bilaabinaa mushkiladda haddaan bilaabinaa state pride waxaa la yidhahdaa argagaxa qofku uu dareemo markuu masrax taagan yahay ama markuu dad hor taagan yahay ama intuu hadalkiisa ku jiro qofku argagaxa uu dareemo ayaa waxaa la yidhaahdaa state pride ayaa la yidhahdaa waana mushkilad inta badan dadku ay ka cawdaan ka qayliyaan oo haysato marka waxaan halkan wax yar ku sheegaynaa waxyaabaha horta keena qofku inuu masraxyada inuu ka baqo ka caaganaado waxyaabaha keena iyo xalkooda labadaasaan hadduu ilaah yidhahda israacinayna before aanan laakiin labadaas sheegin state pride-ku waa wax qof walbaahi uu la kulmi karo anigan waa la soo kulmay waa la soo jihaaday yani cid walbaahina way la kulmi kartaa okay waxaa lagu kala duwan yaha marka dadku sidai ula kulmaayaan qofkan dhowr maruu dad soo hor istaagay masraxyada iyo hadalku kuma cusba waxaa laga yaabaa levelka stage pride-kiis inuu aad u yaryaha laga yaabo 3 ilbirqsi hadduu halkan taagnaado waa okay waa caafimaad qaba qofna waxaa laga yaabaa aanu weligiis dad soo hor istaagin weligiis istijaabin waxaa laga yaaba halkan markuu soo istaago heerka stage pride-kiisa uu gaarsiisan yaha marka la eego gabadhaas xijaabka ay wadato midabkeeda midaysan sheegi karinaa laga yaabo ama wiilkaas inuu tin leeyahay iyo inuu bidaar leeyahay inuusan kalaan sheegi karinaa laga yaabo qofka markii stage pride-kiisu uu aadka u saro waxaa ku garan kartaan qofku markuu halkan soo istaago haddii waxa uu ku cusub yahay inta uu hadlaayo hadalka markuu dhamaystay uu soo fariista haddii la wareysto la yidhahdo maxaa sheegtay se u sheeg warka ma hayo ma waxa sheega ma maxaa keenayo waa controlkiisa yar stage pride-kiisuna aad u badan yahay marka mushkiladda iyada cilmi baaristu waxay sheegaysaa 80% ku dhawaad dadka adduunyadu way haysataa marka inta ka caafimaad qabta oo iska daaweysay oo masraxyada iyo hadalka iyo waxyaabahaasna aadka ugu raaxaysta aaday u koobantaa leeyahay marka this is a big problem haddaad adigu hadda isleedahay waa baxarkaas waa ku jirta haddaad isleedahay hadda waa lagugula jira waa lagaala buuxa 80% number yar maa soo 10 qof ay isla socota waxaa leeyahay waa 8 ka mid 9 ka mid waa xanuunsanta marka this waa big problem okay marka kaasna marka waxaa la yidhahdaa stage pride ayaa la yidhahdaa calaamadaha lagu garto waxaa ka mid a waa taqaanaan wadnaha bug almiiteynaya qofku hadduu gacan saanba inta u saaro is yidhaahdo inuu banaanka kusoo baxaa sidoo kale calaamadaha waxaa ka mid a gariirka qofku gacmaha uu ka dareemo lugaha sidoo kale uu ka dareemo dhididka faraha badan ee marmarka qaar qofka u malaysay fuusto biyaha in loogu qubeeyo kale waxaa sidoo kale ka mid a stomach egg waa taqaana sooma isagoo gurigiisa jooga haddii inta lasoo waca la yidhaahdo soo jeedinaa ku qoranta ama haddii hadda inta loo sheega la yidhahdo isbuuca soo socda soo jeedinaa ku qoranta intuu magaalada iska maraya waa caafimaad qaba laakiin mar allaale markay kusoo dhacdo soo jeedin marka daats waa calaamadaha lagu garto calaamadaha marka hal shay keena shayga keena waxa waaye waxaa jira hormoon intiina caafimaadka daraasaysaa fahmi karteen loo yaqaano adrenaline hormoonka isagaa waxaa la soo fasaxaa oo soo daaya qayb ka mida nervous systemka oo lagu magacaabo sympathetic nervous system hormoonkaas marka waxaa la soo daayaa xoogaa qofka markuu mushkilad ama wax naftiisu xoogaa aysan jeclaysan oo kale markuu arko markaasaa hormoonka la soo daaya marka halka mare aad naxaysid automatically hormoonkaasaa qofka lagu soo jeedina okay su-aala marka meesha imaanayso qofka halkaan soo istaag ilbirqsiyada u horeysa waa isla sheegnay soo mahayn xaalkiisu qofka ma fadhiya dareenkaas oo hormoonku dhalinayo aan idiin sheeg qofka intuu hadlaayo dhan
ma iskaga jiraa mise xilli uu leeyahay tusaale ka soo qaad inuu xilli leeyahay kutusayahay waa farxad ka soo qaad farxadda hormoona keena soo ma weligaa faraxsanaana marka ma dhola cadayne waxaa jira hormoonka waa la dejina ka soo qaad waa xanaaqday xanaaqa laftirkiisa hormoona keena weligaa ma wejigaa korona ma xanaaqsanaane maya hormoonka waa la dejina jirka bini aadam fiir qaabku u samaysan waa cajiib hormoon kasta waxaa jira hormoon la dagaalamaa jira marka soo qaad hormoonkii cabsida gariirkaa lagugu soo daayey mid kaloo waxaa jira la dagaalamaya jira marka dagaalkaas intuu ku dhammaanayo waxay ku xiran tahay qofka xirfadiisa ku xiran tahay haddii halkaan aad ku cusub tahay oo kale waxaa laga yaabaa dagaalka maalmo inuu qaataa laga yaabaa oo la yidhaahdo weli lama kala bixin laakiin haddaad xariif halkaan ku tahay البرسيرو كان فرسمو يرى على إيمانسا وحلية لو تخيط ولو كلا بحث يا ولو كلا بحث أركضات سينات كي ستيج فرايد ما كنت أسألين أوكي diagnosis markii waxaa sababa markii qofkiinu masraxa ka caaganaado hadalkiinu ka baqo communicationkiinu ka baqo dadkiinu soo risaagin maxaa sababa marka waxyaabahaana keena waxaa ka mid ah kow lack of experience horta qofkiinu cilmigan hadalka communicationka wax soo jeedinta horta inuusan aqoon u lahayn waxaa inuu yani jaahil inuu ka yaado qodobka labaad poor self confidence kalsoonida nafta qofka yani kalsoonida qofku naftiisa ku qaban inay taatu hooseysa ama yar inuu isleeyahay kullada muuqaalkaagu hadda adigu isfiirisidaa nasiib leedahay dad kale ma ku fiirin karaya ama codkaan adigu haddaad dhegaysatid alxamdulilah dad kale say ku dhegaysanaya marka qofka xoogaa inuu is yidhaahdo almas adigu yani hadalkaba kuma fiicnin soo jiidintaba kuma wacnin dhegaystaad ku fiican tahay waxyaabana noocaasa qofku inuu isku maawiyo marka kalsoonida nafta haddii qofka waa kaasa qodobka xiga waxyaabaha keeni kara qofka inuu ka baqo ama ka caaganaadaba dadka hor hadalka waxaa ka mid ah insufficient preparation diyaargarow qofkaan ku filnayn ama diyaargarow aan gaarsiisnayn heerkii loogu talagalay marka qofku nafsiin waa inaa u diyaarsantaa horta waxaa ka hadlaysa laftirkooda inay ku diyaarsan yihiin muuqaal ahaan laftirkeeda xitaa inaa u diyaarsanta laakiin markay xoogaa waxaa ka hadlaysid xoogaa lagu jiro adiga laftirkaagu waxyaabo kale ay kugu furan yihiin oo kale waxaan kalsooni darrada iyo yani tubooyinkaasoo dhan ayagaa kugu soo furanaya qodobka xiga waxyaabaha keeni karaa qofka inuu la kulmay state fright waxaa ka mid focusing on audiences qofku marka halkaan soo istaago inuu dadka diiradda saaro waxaa laga wadaa halkaanu soo istaagay asalaamu calaykum subax wanaagsan magacaygu waa balaa waxaan rabaa inaan ka hadlo ciwaan ku saabsan teknolojiyadda marka asagoo hadalkii wato wuxuu arkay laba wiil oo geeskaas sheekaysanaysa markuu arkay hoos wuxuu iska yidhi yaa adeeg kaa sheekaysanayan mo aday wax kaa sheegayan oo u dhamaato marka ama wuxuu arkay war xagga fadhiso yara dhoola cadaynaysa markaas wuxuu is yidhi adeeg kuu qosli sooma bes intaas qofka hadduu isweydiiyey eber waxyaabaha marka qofka haddii cabsidiisu ay aad u sarraysa la faraayo waxaa ka mid qaybaha dambana waa ku arki doonaa hadduu ilaah yidhahdee when you are speaking waxaa laga doonayaa yani waxa ka hadlaysid iyo naftaada focuskiina saartaada wiilasha sheekaysana shaqo ku melid gabadha dhoola cadaynaysa shaqo ku melid midda taleefonka la soo baxday shaqo ku melid waxaasoo dhan waa none of your business haddaad laakiin tiraahda labada wiil anay iga sheekaysanayaan waxa sheegaysid waxa soo sheegtay waxa kuu dhiman meelaa maraysa warka ma haysid waa adoo rabay inaad 10 qodob ka hadashid qodob sheegay kadibna yidhi waa bilaa tawfiiq iska fariiso markaad fariistana is yidhi ujeedadii iyo qodobada aad rabtay inaad sheegtid marka don't focus on audience okay focus on yourself qodobka xiga oo ah qodobka u dambeeya waxyaabaha badanaa keena qofka inuu masraxyada ka baqo waxaa ka mid ah fear of making mistakes qofku is yidhaahdo amaad wax qaldan ku dhawaaqdaa amaad qalad sheegtaa waxaan amay qalad noqdaan waxyaaba noocaas oo kale so first time qalad uu kaa dhici kara second time qalad uu kaa dhici kara third time qalad uu kaa dhici kara laakiin haddii yani bilowgii hore wixii aadan ku dhiiran seebara marka almost marka waxyaabahaasa keena marka next marka halkeedu ama daawadeedu maxay horta cilmi baarisaa la sameeyey waxaa la soo ogaaday stage fright-ka ama social phobia
kiniini iyo sharoobo lagu daaweeye adduunka horta inaysan jirin horta waa la soo ogay dhakhtarkii soo saari lahaa xitaa waa marka kin qofku waxaa jiro techniques iyo farsamooyin uu raacayo oo uu ku daaweyn kara jirka kama okay then how can I beat stage fright seen uga adkaan karaa ama uga guuleysan karaa stage fright see uga guuleysan karaa okay qodobka koowaad waxyaabahaana raaci doontaa hadduu ilaah yidhaahdee now your topic horta waxaa ka hadlaysa cilmi u yeelo mawduuca ka hadlaysid horta inaad mustargalaysaasoo asiga horta inaan lagaa bil mawduuca ka hadlaysid inaad horta aqoon buuxdo horta waa inaa u leedahay waxyaabaha badanaa tashwiishka qof ku fura waxaa ka mid ah qofku markuu mawduuca uu ka hadlaayo kale xog badan oo kale markuusan ka hayn oo kale oo waxyaabaha badanaa tashwiishka keeno laakiin markaan mawduuca lagaa bil halkaan inaad taagnaato iyo halkaan inaad fadhiso it will be same sababto halkaan waxaa ku dareemaysaa lugtaadu meel culus inay ku taagantaa dareemi waa markii waxa aad ka hadlaysid aad aqoon durugsan u leedahay laakiin markay xoogaa su-aalay kaa yimaadaan haddii qof xoogaa kaa weyn uu soo galo waxaa laga yaabaa inaad istiraadahay kii mawduucan kaaga aqoonta badna hadduu soo galo bis waayo ya oo su-aalaha kaa weydiin lahaa qaladka kaa qaban lahaa laakiin markii mawduucaaga inta dadku ay kaa filanayaan in ka badan markaa ka taqaanid oo kale waxay u badan tahay inaad hadalka iyo waxa dhan ku raaxaysay u badan okay marka number 1 now your subject or now your topic waxa ka hadlayso horta aqoon durugsan u yeelato good qodobka labaad qofku uu ku xakamayn kara ama uu ku maarayn kara stage fright-ka waxa uu yahay don't overthink audience reactions waa mid ahdaafta tilmaama hadalkaaga dadku siday uga falcelinayaan aad ha ugu fikiri waa tusaalayaasha haddaati aan hormarinayay yani dadka ka dhex hadlaayo kale dadka taleefanada la soo baxayo kale dadka nool la cadaynayo kale labada isku jeesanaysoo kale waxyaabahaas waa waxyaabo dadka iyaga u gaar adiga kuma qusayaan daatana wiilka anigu qoslaya labada damaan iga sheekaysanayaan haddaad tiraahdo laakiin nothing marka waxaa u fikirtaa dadku arrimo ayaga u qaas gabadhaas day qosasho danteedii u qosasho anigu ma qoslin hagadaa iskaraado adag kuu qosli yani qodobadii wixina way kaa kala daadan ke dhowr markii qodobka xiga qofku uu ku xakamayn kara ama uu ku maarayn karo ama uu ku guulaysan karo bataatama stage fright-ka oo weliba qodobada ugu muhiimsan waxaa waaye practice and prepare extensively labadaasa israacin diyaar garow iyo joogtayntaa hormarinaynaaye tusaale intaadan la tegin masraxa ama meeshaad wax ka jeedinaysa hadalkaan intaadan la tegin before adigu waxaan practice garee ku celceli isku sheeg isfahansii isku ah practice-ka waxaa laga faa'iidaa marka waxaan meeshay u socdaan iyo meeshay ka socdaan oo fahmi laakiin ka war hadal macnihiisaba aadan adigu fahansaneyn dad u sheeg haddii lagu yidhahdo waa adagtaa soo ma anigu ma sheegin haddaad indha adeeg inta isticmaasho aad leedahay madmadow alla idin yaqaanay qaata haddaad leedahay ma sheegin anigu laakiin wax aadan fahansanayn ama su-aale ay kaaga jiraan dadka inaad la hortaagto waa adagta practice-ka marka ahmiyadda ku jirto waxay tahay waxaan meesha u socdaan meesha ka socdaan waa fahmi markaa fahantiina dad fahansiisana waxaad u sahlo marka practice-ku waa kaasa diyaar garowga marka dhowr meeloodba diyaar garowgaasuu soo geli karaa kow waxaa ka hadlaysid labo nafsiyan saddex physical ahaan inta inaa u diyaarsata labiskaagii muuqaalkaagii haykalkaagi waxaasoo waa inay diyaarsan yihiin public speaking marka la joogo annagu ma naqaano waxa la yidhahda magic waxaa u taqaana wax ka soo dhaca sooma public speaking marka la joogo annagu ma naqaano gabadhan waa magic iyo wiilkan waa magic ma naqaano waxaan naqaanaa everything depends on preparation sheekada dhan waa diyaar garow bas qof walba hadalka laga filan karo waxay ku xiran tahay diyaar garowgiisu intuu leegyahay qofka diyaar garowgiisu meesha u dambeeya uu joogo waxaa hubantaa qofkaas hadalkiisu inuu ku raaxaysan karo haddii diyaar garowgaagu iska wax yar oo shukulaato korka laga soo mariyo uu yahana marka sheekadoo dhan fiiri waxay ku biyo shubanaysaa oo ay ku xiran tahay inta aad diyaarsan tahay ku xiran tahay intiina hadda halkaan fadhiisa qof kastoo idinka mida wuxuu soo jeedin karaa khudbad aan weli adduunyada laga uu soo jeedin kara sababtoo ah
gabdhuhu waxay haystaan fursad ay wax ku diyaarin karaan at the same time wiilashana waxay haystaan fursad ay wax ku diyaarin karanaysa marka it's all about preparation waxa marka magic la yiraahdo waxa waa wiil ama gabar markuu masraxa soo istaago markii masraxa soo istaagto dibshida anagu waxaan waa diyaar garow bas waa diyaar garow taasana marka sheekadu dhan waxay ku fiishanaysaa oo ay ku xiran tahay diyaar garow then qodobada ugu dambeeya marka qaababka qofku uu ku maareyn karo ama uu ku xakameyn karo cabsida waxaa ka mid ah clearly organize your ideas afkaarta aad rabtid inaad soo gudbisid ama qodobada aad rabtid inaad sheegtid oo kalena organize garee oo hagaaji saa rabtid inaad u kala sheegtid u kala hormarisid numberkooda yani waxaasoo dhan they should be well organized qofku marka mashaakilaadka waxyaabaha keena waxaa ka mid hadalka qofku markuu noqdo halkan ka qabo waxyaabaha mashaakilaadka keena waxyaabahaasaa ka mid laakiin inta qodob aad rabtid inaad dul istaagtid saa rabtid inaad u kala hormarisid saa rabtid inaad u kala sheegtid ahmiyadda ay ku kala leeyihin waxaas markaad organize garaysid waxaad dareemaysaa kalsooni gudaha dareemi marka laga hadlaayo organizingka marka laga hadlaayo saddexdaa ama si kale haddii loo dhigo haykalka hadalka uu sameeyay oo saddexdan shay kan koowaad waxaa la yidhahdaa horbaca hadalka qaybta labaadna waxaa la yidhahdaa boodiga ama developmentiga oo qaybta dhexe ee hadalka iyo kan saddexaad oo ah backgroundka ama conclusionka hadalka khudbad kasta soo jeedin kasta saddexdaas shay ka koobanta 3 daqiiqa la soo jeediyo ama 10 daqiiqa la soo jeediyo waxay rabtaan ku saabsanaato saddexdaas ay ka koobanta waa arar ama furfurasho hordhac qaybta dhexe ee hadalka iyo gabagabada ama gonaanada marka idinka buura ka dhiga maahane oo various hadalkaaga furfuran qodobada aad rabtaa dul istaagaysaa oo aad ka hadlaysaa deetana waa soo gabagabaynaysaa inaad wax kale meesha yaal ma lahan jamsan marka waa saddexdaas maxaan ku celina marka kan koowaad maxaan dhahay structure-ka hadalka kan koowaad maxaan ku sheegay ku dhawaaqay introduction kan labaadna maxaan ku sheegay body kan saddexaadna maxaan ku sheegay conclusion adduunta marka as a speaker qofka markuu hadalkaaga daawanayo ama dhegaysanayo waxaan rabaa inuu ka dhadhansado furfuritaan qodobo dhexo aa ka hadlaysid iyo gabagabo inuu ka dhadhansadaa lagaa raba marka annabaa qofka isagu musalsal daawanayo kale hadalka inaa ugu dhigtaa lagaa raba saddexdaasaad markaa kala hagaajinaysaa then hordhaca maxaa lagu sheegaa boodiga maxaa lagu sheegaa conclusionkasa maxaa lagu sheegaa okay waxaan ka bilaabaynaa marka qaybta hordhaca qaybtaas waa nuxurka hadalkaaga hadday hallawdo khudbadaada waa hallawdo hadday guulaysato khudbadaada waa guulaysato introduction hordhac hadalku goormuu bilowdaa marka hadalku wuxuu bilowdaa bismillah markaad tiraahdo muu bilowdayaa hadalku wuxuu bilowdaa dadka aad wax u soo jeedinaysa markay ku arkaan warkaas ma codhigis hadalku sidiisa wuxuu bilowdaa dadka audienceska-aga ah aad wax u soo jeedinaysid markay ku arkaan markay ku maqlaan laguma dhinya soo halkaanaad soo istaagta marka aasi ay soo istaagtid khudbadaadu waa daaran sababtaa dadkii waa kusoo qiimeynayaan waxay kaa filan karaan iyo waxbaa la isku hagaajinayaa sawirkaagaa la sii fiirinayaa marka dadka yidhaahda fiir ayagoo xoogaa masrax taagan hadalka markuu bilaabayo yidhaahda ka hor intaanan bilaabin waxaas qalad ka hor intaanan bilaabin qalad waa bilowda marnaa bilowda hadalkaagu wuxuu bilowdaa intaan lagu arkin warkaa wada dhinaca soo maa good ka soo qaad marmar qaar marka waxaa soo risaayaysaa dad boring dareemaya oo caajisan oo maantoo dhan hadalla caajisa loo sheegayo kale dad noocaas kalea soo risaayaysaa waxaa lagaa doonaya marka meeshaas inaad sheeko ka cuni kartaa waxyaabaha badana marka dadka dareenkooda lagu soo jiito oo kale waxaa ka mid a sheekooyinka oo kalea ka mid waa soo risaagtay dadkii mid taleefon ku mashquulsan mid haamaansanaya boring ayay asalaamu calaykum waxaan rabaa sheeko yar inaa idiin sheego qofna diyaar marka sheekooyinku badana waxay ka mid yihiin waxyaabaha dadka soo jiitay ka mid qodobka labaad waxyaabaha badana dadka qaybta hordhac oo kale lagu sheego attentionka dadkana aadka
aadka usoo jiida waxaa ka mid quotation ama xikmadooda. waxaa jirta xikmad yar, waxaa jirta oraah yar oo odhanaysa sababta fiiri marka sheekada iyo xikmaduhu ay xoogaa muhiimka u yihiin. haddaan dib u laabanaad casharkii ama saacadii xoogaa inaan hadda saasaa u malaynayaa casharka maanta la sharxayn haddii hadda lagu yidhaha wax ka sheeg waxaa leenahay tirada macno laakiin xikmadda yidhahdo cashir ku jirta wax xistaa sooma ingilishka haddaadan xasan even soomaaliga xistaa sooma macallinkii 3 saac buu ku hortaagnaa cilmi aqoon balaa waxbuu sharxay laakiin casharka waxaa ku jirta sheeko yar oo xiiso badan. sheekadaas waa unforgettable, lama hilmaami karo. marka badanaa xikmadaha iyo sheekooyinka dadku way soo jeedaan. qodobka xiga waxyaabaha badanaa qofku qaybta introductionka hadalkiisa uu ku sheegi karo attentionka dadkana uu ku heli karo waxaa ka mid give surprising fact, waxyaabo dadka ka qoslin kara oo yacni la yaab loo kale inaad yacni meesha la timaadid oo kale waa waxyaabaha badanaa aadka loo sameeyo. okay tusaale su-aalaan rabaa inaan idin weydiiyo jawaabta oo ii boorsiinaysin. okay are you ready? good. su-aashu waxay tahay imagine waxaad haysataa 2 qol waa taqaanaa sooma labada qol waxaa kuugu jiro kaaga buuxa shahaadooyinkay iyo aqoonsiyadii aad qaadatay intaa wax baranaysa qolay kaaga buuxa. qolna waxaa kuugu jiro lacag malaayiin dollar oo kaasha kuu rasaysa. marka qolka shahaadooyinka adaa seexday shahaadooyinkana ugu yaalaan kaana waxaa waa suuq walba waa fiirisaa lacagtu inay taallay in kala waa jeegta. nasiib xumo waxaa dhacday guriga kugu dhegan baa waxaa ka kacay dab waa taqaanaa sooma automatic hadda lacagtaa ka fikiraysaan waa dareemaaye dabkii wuxuu ku soo faafay gurigaagii buu ku soo faafay waa soo dhawaaday waa ciribku u soo fuulay. marka waxaa yimid marka degdega ku yimid booliskii markay arrintii qiimeeyeen waxay ku yidhaahdeen 2 kala dooro. labadan qol ma wada badbaadin karna dadka awoodiis markaan eegin. ma waxaad dooran lahayd lacagta maa dooran lahaydeen mise waxaad dooran lahayd shahaadooyin? what maxaad dooran lahayd lacag sooma shahaadooyin ya boolis damba damiyey laakiin sorry ya labadaada qol allah u naxariiso boolis wax damba damiyey cidda timid dabdamis ma ahayn yaa yimid boolisna damba damiyey. okay marka labadaada qol shahaadooyinkaagii marka waxaan ka wadaa waxaan ka wadaa waxyaabaha badanaa dadka yacni attentionkooda lagu helo kale waxaa ka mid a waxyaabahaas oo kalea ka mid a oo qofku dadka xoga uga qoslin karo humarka oo kale aadka uga mid a tusaale qof halkaa inta iska soo istaago xogaa dadkii dhan marka waxa waaye waa yacni halkaa iska fadhiya marka wuu iska fadhiisanaa fadhigaas wuxuu kaga golleeyahay dadka attentionkoodu rabaa inuu ku marka qof fadhiya marka qof loo soo fiiri lasoo wada fiiriyo asalaamu calaykum marka waa techniques aad loo isticmaalo. qodobka xiga u dambeeyana waxa waaye oo ka agdhowya kan kor ka agdhowyahay humor waxaa la yidhahdaa waxyaabaha jokinka ee kaftanka oo kale ayaa waxaa la yidhahdaa humor ayaa marka qaybta introductionku marka waa taasaa intaana ka bixin marka introductionka haddayna waan sheegay hordhaca hadalkaagu hadduu guuldaraysto khudbadaada maxsanaado hordhaca hadalkaagu hadduu guulaystana khudbadaada hamli you get it fiiriya waxa loo dagaalamo xawa attentionka dadka loo dagaalamo sooma ma rabo qof ma jiro qof halkaa markuu soo istaago raba in lagu agsheekeeyo lagu buuqo lagu hamaansado qof walba wuxuu jecel yahay straight in loo soo fiiriyo. marka waxyaabaha badan attentionka lagu heli kara waxaa ka mid ah hordhacaas oo kale qofka inuu aad isaga hayo. come next introductionka marka laga taga marka qaybta labaad ee hadalka waxaan ku sheegay body ayaan ku sheegay. marka bodygu waa qofka wax soo jeedinaya speakerka meesha qodobada muhiimka afkaarta muhiimka oo xambaarsan meesha uu ku sheegayo ayaa waxaa la yidhahdaa body ayaa la yidhahdaa. halkan marka waxaa lagu sameeyaa main points ayaa lagu sameeyaa qodobada muhiimka oo ka hadlaysa ayaa lagu sameeyaa. waxaa lagu leeyahay marka support your main points with yani qodobada ka hadlaysid waxaad ku saacidaa ood ku caawisa tusaalayaal waxyaabo sida tirakoob oo kale 100% wax noocaas oo kale sheekooyin oo kale xikmado kale waxyaabaha isku support garay.
qaybta gabagabada marka iyadana waxaa lagu sheegaa kow yani hadalkaagoo kale waxaa rabaa inaad soo koobi kartidoo kale qodobada ka hadashay central idea waxaa la yidhahdaa xudunta hadalkaaga waxaa la yidhahdaa central idea la yidhahdaa si kale haddaan u dhigan central idea waxaa laga wadaa hadalkaaga oo dhan markay dadku ilmaamaan waa in la heli karaa shay aysan hilmaami karin tusaale halkan hadda markaan ka baxo oo khudbadda hadalkaanaan dhameeya inaan public speaking ka hadlay ma hilmaami karti laakiin waxyaabahan maanta soo jeedina qaybo ka mid a waa hilmaami karta lianna hadalkayga central ideas ama waxaa xudunta hadalkaygu waa inaan ka hadlayo public speaking inaan ka hadlayo marka xudunta hadalkaagoo kale dadka inaad xogaa dib u xasuusin kartidoo kale waa muhiim check feedback dii hadalka tusaaleaan ay wax ka soo laabtaan oo kale tijaabi hubi qodobka u dambeeyana waxaa dadkoo kale u mahadaan